السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب الكسور دواده لين إنجليش with حسن. مقعيقو حسن عبد الله حسين. وحرب مانتا إن إدين فافاهيو ويب سايت كي أتكبر لهاد لغة إنجليش كوري بس بلاش رونهانتي ويب سايت كان waxaa ku jiro 7 course oo free ah oo loogu talagalay dadka US citizenship-ka in helaan ama qofkii dhalasho Mareykan ama deganaanshaha Mareykanka dadka Mareykanka imaan doono inay imaadaan doonayo dadkaas ayaa loogu talagalay inay luqadda English ka bartaan qaab itus oo itaabsi ah ayaa casharada lagu barayaa macallimiin professional ah ardayda wax baraysa marka website-ka baan rabaa inay idin la wadaago muuqaal horaan ka soo sameeyay su'aalo badan baa iga soo laabtay waan ka wada jawaab waayay marka maanta aan bal isla fiirinayna insha Allah marka website-ku waxa weeye USA learners ayaa la yiraahdaa USA learners.org waa ka .org marka waan raadinayaa marka waxaan kugula talinayaa haddii laptop aad heli kartid inaadan ka caajisan oo laptopka inaad isticmaashid baan kugula talinayaa maxaa yeelay laptopku wuxuu kaa caawinayaa inaad xogta si nadiif ah u aragtid marka halkan wuxuu leeyahay dabcan meesha su'aashii ugu badneed oo la isu weydiinaya waxay tahay hadda kan sign off ayaan iska dhahayaa si aad ila fahamtiin marka saan aan usoo galo website-ka wuxuu ku keenayaa wejigiisa hore ayuu ku soo baxay website-ka wejigiisa hore markii uu ku soo baxo waxaad ku dhufanaysaa halkan markaad joogto waxaad ku dhufanaysaa halka start now ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa ama hoos waatana meesha aad ugu dhufan kartaa so start now iyo sign in farqiga u dhaxeeya ku sheegaya start now markaad ku dhufanayso hadda ayaan ku cusbahay waaye gmail cusub iyo waxa baxsan ka sameeysanaya sign in waxa taabanaysaa markii hore aad start now inta soo sameysay aad iska soo diiwaangelisay password-kaaga gmail-kaaga ha ilooban si sign in aad u dhahdid marka dadku badan waxay soo weydiin maalin walba gmail maalin walba isdiiwaangeli ayuu leeyahay start now haddaad ku dhufato isdiiwaangeli ayuu dhigantaa mar waliba so start now ha ku dhufanin haddii aad hore isaga diiwaangelisay sign in dheh marka ani hadda start now ayaan ku dhufanaya hadda ayaan iska diiwaangelinayaa markaad inta imaato waxaa formkan baan kusoo baxay formkan baa buuxinaysaa marka halkan emailka caadiyaad ka gashanaysaa emailka rabtid haado emailkaaga caadiga xataa waa gashan kartaa ama mid hadda iska samaysanaa fiiriya waxaan ka dhiganayaa tijaabo 13@gmail.com aan ka dhigtay so tijaabo 13@gmail.com ha iska iloobin gmail-kaaga magacayga waxaan ka dhiganayaa tijaabo barasho ayaan ka dhigtay magacayga koowaad iyo labaad password iska fudud u samayso oo aad fahmi karto oo aan ka lumaynin 9677 labada password waa inay islahaadaan marka ugu dambaysa su'aashaas aad ka jawaabeysaa eber lagu daray 5 adiga meeshaas tira kale inay kugu soo baxdaa laga yaabaa laakiin aniga hadda eber lagu daray 5 waa 5 tii oo kaliya soo register halka ayaad ku dhufanaysaa waka marka ku dhufato courseski igu free ah waa kana koorsada koowaad labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad course ayaa ku jirta halkan haddaba marka inta aad imaato start class kan ayaan ku dhufanaynaa marka hore start class ayaad ku dhufanaysaa start this class ayaad ku dhufanaysaa marka koorsadan waxay ka kooban tahay intaan bay 20 kaas chapter bay ka kooban tahay mid walibana waxba hoos imaada marka kan ugu horeeya ayaad ku dhufanaysaa maadaama aad ku cusub tahay meesha kan ugu horeeya aad ku dhufanaysaa kan haddana saddexdaana sii hoos tagta haddana kan ugu horeeya aad ku sii dhufanaysaa haddana waa ka intaano 10 ayaa hoos tagta marka kana daawane qaar waa kuwiisyo kanoo kale say it way area meesha lagu qoraa dheh lagu leeyahay cod laga duuba inaad si sax ugu dhawaaqaysid in kale ayaa laga saxayaa kan haddana lagu dhahaa markii intaas aad dhameysato halka menu ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa si dib ugu laabatid hadda kan ayaa soo dhameysatay intro haddana language and practice ayaa ku dhufanaysaa waa ka intan ayuu ka kooban yahay isna ووجد سماه هذا المينو جاي تجلسه
haddana review and quizkaasaa qaadanaysaa, menugaa tegaysaa. marka homeka u laabanayaa si koorsadan markii aan dhammeeyo aan uga baxo. haddana koorsadaanan tijaabinaynaa. middan waa second English course way. start this class ayaan leeyahay. iyana waxay ka kooban tahay 5 chapter ay ka kooban tahay. chapterka koobaad waxaa sii hoos imaado 5 ciwaan baa hoos 4 ciwaan baa sii hoos imaato. ciwaanka koobaad baan ku dhufanayaa. ciwaanka koobaad intaana 10 ka kooban yahay. wakaas intaasoo 10 ka kooban yahay. waxaan waqti badan inaad gelisaa laga rabaa. reading kaano arag firi. who said it yaa dhahay. listening aan daawano. getting ready listen for it sida loo isbeeliyo qaabka dhawaaqa laga saxayaa. definitionka waxaabihii dhan new words baa baranaysaa. masha Allah tabarakallah waa course professional ah. hadda kan waxa waaye chapter 1 ciwaankiisa kooda casharadiisa waaye. dib aan u laabanayaa. chapter 1 aan weli ku jiraa. chapter 1 ciwaankiisa labaad. chapter 1 ciwaankiisa saddexaad. chapter 1 ciwaankiisa afraad. marka intaas soo dhameysto ayaan dib u soo laabanayaa. waa kana chapter 2 ayaan tagayaa. chapter 2 hasna wuxuu ka kooban yahay 5 6 7 8 aan ka kooban yahay asna. kii hadda wuxuu ka koobnaa 1 ilaa 4 5 ilaa 8. chapter 2 ciwaankiisa koowaad waa kana marka. waa kana intaan ayuu ka kooban yahay. waa wada daawanaysaa. marka adiga laga rabaa inaad daawatid. daawashadooda waqti aad gelisid si maarata wax badan aad uga faa'iido. hay'atan tijaabinayna haddana waa practice English and reading. start this class ayaad mar walba ku dhufanaysaa. family ayaa ugu horeysa. waxa uu ka kooban horta intaan ayuu ka kooban yahay. 9 chapter ayuu ka kooban yahay. chapterka koobaad ee family ayaan ku dhufanaynaa. chapterkan waxaa sii hoos imaado 10 kaas 10 baa sii hoos 10 kaas ciwaan baa sii hoos imaado. ciwaan kasta meeqa 10 ka kooban yahay. hadda ciwaankan kale waxa ka kooban yahay intaan 10 ayuu ka kooban yahay. soo marka calaamadan aan ku fahamsiiyo. calaamadan waxa weeye halkan waxaa lagu soo qorayaa way buuxsamaysaa markii hadda for example basic history gaan oo kale aan fiirinaynaa aan daawanaynaa. basic history ga waxtana. so waa kana a very nice playground was built here almost 15 years ago. waa akhrisanaysaa. halkaa baad ku dhufanaysaa. waa dhageysanaysaa. markii aad dhageysato it had slides, sandboxes, and tunnels. Children who lived in the area liked. marka waa kaasa waa dhageysanaysaa. markii aad dhageysato waa ku dhamaatay mugtahay. saana leedahay. hadda waa ka sheekada ma aanan dhameysan. meeshaas haddaan dhameysan way buuxsamaysaa. mar intana waxa kugu soo qormaayo markii quiz aad ka shaqeyso inta dhibcood aad ka keensatay. marka aad bay runaantii hadda kan oo kale say it ayaa lagu dhahay. wuxuu ka saxayaa dhawaaqo ka saxayaa. waan ku dhufanayaa. marka hore waa dhageysanaysaa kadibna next ay leedahay. mar kale ku celi. hadda waxa laga yaabaa idinku inaadan maqleynina. marka burned waka Extremely. hayu waa dhahayaa extremely. qaybta markii aan dhamayno neighbors. qaybtaan yarta aan dhamaynaa si skorkiga aan idin tuso. organizers wuxuu sameynayaa waa laga saxayaa. playground waa 5 ayaan maraynaa. project next 7 ayaan maraynaa ilaa 10 aan gaarsiinaynaa. rebuild 8 ruined volunteer midda ugu dambaysa worried. kadibna next ayaan leeyahay. next markii aan idhaahdo menuga ayaan ku laabanayaa.
si aan u arko wixii aan qabtay waa dhamaystay mujeedadu waa ii buuxsamaysaa markii shayga aad dhamaysatid wuu kuu buuxsamayaa markuu kuu buuxsamo maasha allah tabaaraka allah marka quizkan sheekadii historigeeda inkastoo sheekada aanan daawanin quizkan haddana fiirinaynaa waa ku dhufanaysaa marka ku dhufato waxaa lu dhahay many parents and neighbors hoped to play out rebuild sheekada inaad soo akhrisid ayaa su-aalahan ugu jawaabi kartaa marka anigu sheekada ma aanan soo akhrin adigu soo akhri markii su-aalaha aad ka jawaab hadda fiiriyaa wixii gacanteeda iska soo qabataan iska dooranayaa waa layga khalday rebuild hubi yes rebuild waaye next ilaa 16 su-aalood waaye kana iska dooranayaa waa iska dooranayaa yacni si aan idin tuso laakiin waqtiga ugu dheeraanayo soo adiga tijaabi marka intaan taabanayaa inta markii aan taabto skorkayga la ima tusin oo maxaa yeelay ma aanan dhammaynin quizka waa kaa haddaa quizka dhammaystiro inta dhibcoodan kale intaa laygu soo qorayaa marka mar rabo muuqaalku inuu sii dheeraado almost 12 daqiiqo ayaan sii maraynaa muuqaalkuna sidaa usii dheeraada mar rabo marka runtii kursooyinkan aad bay muhiim u yihiin skills for nursing assistant oo kala ku jirta access America halkan baan isla tijaabinaynaa halkan waxaa ku qoran new beginnings facing challenges taking control becoming part of our community silent in so waxaan ku dhufanaynaa marka facing challenges oo kale waa kuwana unit station intaanu ka kooban yahay intaanu jabtarka koowaad aan ku dhufanayaa mise ciwaanaha hoos imaato intaan baa hoos imaata so adigaa lagaa rabaa brother walaalkay ama walaashay in aad ka faa'iidaysato oo aad boorka iska jaftid hadda for example kanoo kale ayaan sii tagayaa haddana hadda waxaan ku dhuftay midkii ahaa facing hadda kanaan ku dhufanayaa becoming part of our community taking care of the environment choosing a path interviews on promotions achieving goals test unit so waxaa loogu talagalay dadka helaya US citizenship ama muwaadiniinta Mareykanka ayaa loogu talagalay inay halka wax ka bartaan sida daradeed aad buu ku caawinayaa marka muhiimaddu waxa waaye in sign in sida loo yiraahdo la iskaga diiwaangeliyo casharada loo daawado next day meelaha qaar meeshii dhageysi ah listen ayaa ku qoran meeshii daawasho ah waxaa ku qoran عفوا ماشي اخر read ayaa ku qoran kuwiisyada ka jawaab aad buu ku caawinayaa kuwiiska markii aad ka jawaabayso waxaa jirto su'aasha inaad saxday iyo inaad khaladay meel laga hubiyo baa jirta marka su'aasha inaad khaladay iyo inaad saxday meel laga bilaabo meel laga ogaado baa jirta for example halkan waxaa inoogu qoran marka hore aan ku laabto start over ayaan leeyahay hadda soo bilow hadda ku sug away quiz aan doonayaa family aan ku dhufanayaa markii aan ku dhufto kanaan ka sii tagayaa waxaan tagayaa quizkan oo kale aan tagayaa eeg quizkan markii aan ku dhufto su'aashii markii aan ka jawaabayaa iga saxaya hadda for example kan oo kale why did people wanted to rebuild the park for example marka su'aashan sheekadii haddii aad soo dhageysatay waad ka jawaabi karaysaa marka ani midaan iska dooranay hadda kanoo kale aan dooranay halkaa waa inaad ku dhuftaa check inay ku saxan tahay inay khaldan tahay waa kaa correct now press next midka ku xigta garaac baa la yidhi okay next ayaan dhahay haddana waa kana many parents and neighbors hoped to rebuild ayaan taabanaya waa iskaga nasiibsanayaa check ayaan leeyahay waa kaa correct ayaa leedahay playground haddaan taabto waa layga khaldi lahay next ayaan leeyahay so marka su-aasha markii aad jawaabta saxda play oo kale aan doorto check inaad taabato iloobin haddii meel laga bilaabo aad weyso adhow way kugu adkaanaysaa waa layga khalday kana haddana taabanaya waa layga khalday kanan taabanaya marka kulli waa layga khalday su-aasha saxda waa la ii sheegay maadaama aan 3 option khalday marka runtii website-kan aad iyo aad buu kuu saacidayaa insha Allah groupka Telegramka ee Waaya Arag Academy ayaan soo dhigayaa linkigiisa groupka Telegramka ku soo biir haddii Ilaahay yiraahdo aad baad u mahadsantahay saaxiibayaal